gabadhan ka gaadha wiil ayay u baahan tahay ninbay u baahan tahay ubad ay dhashay u baahan tahay waa gabadh idinkan ila mida waxay u baahan tahay ninbay u baahan tahay goobtan ay hadda taagan tahay waa goobtii caanka ahayd ee fagaaraha khayryada waa goob caana oo isla markaasina isku yimaadaan wiilasha ugu badan ee Hargeysa ku nool fadlan gabadhan nin ayay u baahan tahay fadlan ka gaadhay fadlan ka gaadhay fadlan ka gaadhay gabadhan nin ayay rabtaa gabadhan aad u jeedaan waxay raadinaysaa waa wiil hadda wiil ayay u baahan tahay wax kale ma rabto nin ayay rabtaa gabadhan aad u jeedaan ee quruxdaas leh hadda waxa ay raadinaysaa kaliya waa wiil waxa ay taagan tahay bartankii suuqa magaalada Hargeysa isla markaasina waxa ay sidataa warqad ay ku qoran tahay waxaan ahay gurdoon oo waxay kaloo gacanta ku sidataa waa kitaabkii Quraanka Kariimka isla markaasina waxa ay rabtaa wiil ay kursato oo meher ay kaga dhigto inuu kitaabkaas Quraanka Kariimka uu xifdisiyo waxay kaliya ay rabtaa waxa weeye inuu Quraanka Kariimka uu baro kitaabkii uu ku mehersan lahaa gacanta ayay ku wadataa waxa ay dhex tagtay meel ay ku ciyaarayaan wiilal dhowr ah isla markaasina waxay ka dalbatay inay guursadaan isla markaasina way ceyrsadeen oo way baacsadeen وخليل مثلا شدد واحد قبله قوي ورجع الى ساعه fadlan gabadhan helaga gaadho gabadhan waa gabadh Soomaaliyeed fadlan ka gaadha hablaweynii la dhasheen oo waad dhali doontaan oo waad guursan doontaan fadlan wixii iskaabula ahow gabadhan ayaa idin free ah fadlan gabadhan guursada gabadhan oo markaas meherkeeda uu yahay Quraanka Kariimka oo keliyata marka meherkeedii gacanteeda ayay ku sidataa oo waana kitaabkaas aad u jeedaan fadlan gabadhan ka gaadha oo guursada waa gabadh Soomaaliyeed isla markaasina asturan gabadh walba asturan oo Soomaaliyeed raggu aad ayay ugu hamiyaan wayna jecel yihiin fadlan gabadhan Soomaaliyeed u diirnax wixii ragow fadlan gabadhan guursada waa gabadh aad u qurux badan isla markaasina xidhan dharkii islaamka lagu yaqaanay ee astaanta islaamka muujinaysa marka gabadhan ka gaadha waa gabadh Soomaaliyeed oo markaas u baahan nin